بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلام يا دمان ومدى الصوماليات ميل كستو الدنيا ذاك الجوكتان. مقعيقو وعلي عبد علمي كدي مركي عن أركي خلاف كبأن يكسي دريو udhaxeeyo dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada. Kadib markii aan arkay in dab la sii hurinayo oo aysan jirin ilaa iyo amminka wax ergaa u kala dabqaadayo. Kadib markii aan arkay in waddanka uu sii kala fogaanayo oo dhibaato badan ay ku soo wajahnaan karto. Kadib markii aan dib u xasuustay 30 sano oo aan ku soo barbaaray colaad, qaxar, dhibaato, qabyaalad, biyo la'aan, koronto la'aan, waxbarasho la'aan iyo wax kastoo xun. Kadib markaan arkay dunida horumartay ee cagaaran oo dadku nabad, waxbarasho, nolol, mustaqbal ay haystaan iyo carruurtooda. Kadib markaan arkay inaan Soomaali nahay oo dadku aysan isdhaamin. Kadib markaan arkay inay meesha ka baxeen marjici loo noqon jiray ee nabadoonnadii, ogaasyadii, salaadiintii, waxgaradkii iyo culamaa u diinkii. Kadib markaan arkay dowladdii dhexe iyo xubnihiidii maamul goboleedyadii inay isku dhagan yihiin oo aysan soo tanaasulayn cidna, waxaan go'aansaday inaan arrintaani la fiirsan karin. Waxaan go'aansaday in arrintaani qof damiir la uusan ka aamusi karin. Waxaa ii muuqatay in kaalintayda aan qaadan karo. Waxaa ii muuqatay in wax firfircooni ah aan isku dayi karo. Soomaalidu waxay dhahdaa isku daygu wuxuu ka fiican yahay isku day la'aanta. Waxaan go'aansaday oo aan ku fikiray oo ii soo baxday in aan arrintaasaan looga aamusi karin. Ay u baahan tahay daqli saaxiiba, ay u baahan tahay waxgarad, ay u baahan tahay cuqaal, ay u baahan tahay dad fiyow, ay u baahan tahay in siyaasadda Soomaaliya wax laga badbaadiyo. Sidaa darteed waxaan go'aansaday in dowladda dhexe ee Soomaaliya oo uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Khayre iyo guddoomiyaha baarlamaanka dhanka kalena iyo maamul goboleedyada isdiidan ee isqaniinay ee xaaladooda ay marayso farafara ku taag iyo laba dowladood daris ah in aan isku dayo wax oo kala dabqaad ah. Inaan isku dayo maadaama ahay nin Soomaali ah, dhalinyaro ah, waayo arag ah, ilaa iyo 30 waddan soo maray oo Afrika iyo Yurub iyo Asia isugu jira, inaan wax ka qaban karo oo aan ka hadli karo. Aan wada hadalno waa aan heshiino. Waxay la tahay yaanan dabka holcaya gaas lagu sii bilbilin. Yaanan ummadda Soomaaliyeed ee qaxarka iyo dhibaatada, biyo la'aanta, rafaadka, nolol xumada, waxbarasho la'aanta 30 sano u soo daalaadhacaysay xilligaani walaalayaal yaan dib loo celin. Qof walba wuu dhimanayaa, waqti yar buu leeyahay. Nimanka siyaasiyiinta waa niman yar ee la tirin karo. Dadka shacabka ee Soomaaliyeed nabad bay rabaan, horumar bay rabaan, dhaqaalay rabaan, korontay rabaan, biyay rabaan, sumcad iyo sharaf dunida inay ku maraan oo baasaboorkooda qiimo iyo shay rabaan. Sidaa darteed waxaa lagama maarmaan ah in qof kasta oo wax tabanayo uu tanaasulo. Axmed Maxamed Islaam waxaan leeyahay dowladda dhexe oo madaxweynahaada iyo dowladdaada u tanaasul. Waayo ma kala maarmaysaan, sina kuma kala maarmaysaan abadan. Kismaayoy Muqdisho kama maarantid. Muqdishoy Kismaayo kama maarantid. Kismaayoy Garawa kama maarantid. Garawooy Jowhar kama maarantid. Ma kala maarantaan. Waxaan idinka codsanayaa ergaan ahay, erga muslim baan ahay,
mid Soomaaliyeed baan ahay, mid dhallinyaraan ahay, afhayeenka ummadaan ahay, afhayeenka 30 sano ee burburkaan ahay, inaad iga guddoontaan ergadaan idiin soo dirayo. Axmed Maxamed Islaam waxaan u dirayaa ergo islaam ah, waxaan u dirayaa baaq nabadoonnimo, waxaan u dirayaa cadaalad. Madaxweyne Farmaajo iyo Khayrane intoo kale aan usoo dirayaa. Waxaan doonayaa aniga iyo guddi ila shaqayn doonaba inaan gogol dhigno, in haba yaraatee Soomaaliya markaan wada hadlayno aan wada hadalno, af Soomaaligeena aan ku wada hadalno, dhaqankeena aan ku wada hadalno, wixii sharci oo noo degsan aan soo bandhiganno. Qof walba wuxuu tabanayo lama wada heli karo, bini'aadanku ma dhargo, ciid unbaa dharjiso. Laakiin wixii muhiim oo laga tagi karo dhan laga tago. Qarannimada dalka, sumcadda, haykalka, sharafta in loo tanaasulo. Aad baa u mahadsantihiin. Ergadaas ayaan ahay. Dhawaana insha Allahu tacaala waxaan jeclahay inaan fadhiyadiina kugu imaan doono. aad baa u mahadsantihiin. Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.